Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee hababka nafaqada qalalan loogu shubo beeraha. Sababta aad ugu shubaysid nafaqada beeraha waa inaad geedihii xididkoodii aad siisid si sahal ah inay ku heli karaan nafaqadii. Haddii aysan si sahal ah aysan ku heli karin nafaqadii aad siisay xididkii hadduusan si fiican oo sahal ah uusan ku heli karin, waxay noqonaysaa nafaqo khasaartay. Marka inaad nafaqadii dhigto meel qalad ah oo xididkii uusan heli karin waxay keenaysaa marka koritaankii geedkii oo yaraada iyo sida aan sheegnay nafaqo khasaartay. Marka sababta aan u samaynayno marka hababka loo isticmaalo nafaqooyinka kala duwan waxa weeye marka inaad sida kuugu habboon aad awoodo oo aad u dhigi karto nafaqadii meeshii xididkaaga uu ku bixi lahaa. Sababtaas darteed weeye nidaamyada kala duwan aan ku tusayno oo aad rabto inaad midka ugu fiican doorato insha Allah xaaladaada. Horey marka waa anaga uga soo sheekaynay oo uga soo hadalnay midda la yiraahdo broadcastingka iyo labada nooc ay u kala baxdo. Videogan marka waxaan uga hadlaynaa qaybtan la yiraahdo placement oo laba nooc ah, palousal placement iyo deep placement. Labadaas ayaan rabnaa inaan videogan aan uga hadalno insha Allah. Kolley qaybo kalena waa noo dhiban yihiin oo hababka nafaqada qalalan beeraha loogu shubo ah. Fertilizer placement marka micnaheedu waa maxay? Micnaheedu waa inaad nafaqadii aad dhigto meel gooni ah oo aad seedkoo kale agtiisa ama geedka agtiisa meel gooni adii aad og tahay inaad dhigto ayaa la yiraahdaa fertilizer placement. Marka tan waxay ka duwan tahay broadcastingkii aan soo aragnay oo aad meesha rabto u firdhinaysay. Tan waa ka duwan tahay. Tan ujeedadu waxa weeye inaad dhigto meel aad og tahay ama waa ka hoos marinaysaa ama waa ka kor marinaysaa ama dhinacaad dhigaysaa. Meelo kala duwan oo badan oo la kala dhiga ayaa jira, laakiin waa meel aad ugu talagashay oo og tahay oo xisaabsan. Sidaas darteed ayaa fertilizer placement taasaa la yiraahdaa. Marka meelahaas kala duwan qaybna videogan aan uga hadlaynaa oo aad dhigto, qaybna waxaan uga hadlaynaa insha Allah videoga soo socda meelaha kala duwan oo la dhigayo iyo ujeedooyinka loo dhigayo. Marka beeraha ciidooda waxaa laga yaabaa mararka qaar inay nafaqo oo nitrogen ama phosphorus ah oo ku filan in ciidda laga heli karo, laakiin waxaa laga yaabaa meeshii loogu talagalay in aysan oolin nafaqadii. Marka haddii broadcasting oo kale aad ku firdhiso waxaa laga yaabaa meesha ay nafaqadaasi taalo iyo meesha xididadii geedka ay yaaliin inaysan islahayn. Marka si kastaba ciidda uga buuxdo nafaqadii, laakiin meeshii ku habbooneed iyo waqtiga loogu habboonaa oo xididku uu qaado lahaa inaysan oolin ayaa laga yaabaa. Taasna waa dhibaato. Sababtaas darteed ayaa kaartadan oo placementiga ah awoodda loo saaraa. Marka sidaan hore u sheegnaba fertilizer placementiga waxaa laga wadaa in precisely meeshii ku habbooneed oo aad rabtay in aad dhigto oo xididku uu soo gaarayay inaad nafaqadii dhigto ama seedka agtiisa dhigto ama geedka agtiisa aad dhigto si nafaqo sarraysa ay meeshaas uga helaan. Siyaabo badanna markii loo eego haba ka dhib badnaato ama ka hawl badnaato broadcastingka waa ka wax soo saar badan tahay markii loo eego intii kiilo aad ku shubtay iyo inta aad faa'iido ka hesho markii la isku eego. Marka placementiga fertilizerka markii la samaynayo inta badan waxaa dadka lagula taliyaa inay sameeyaan markii ay nafaqadu ay haystaan ay ku yar tahay. Waan naqaanaa waddankeena oo kale nafaqadu waa iska qaali, lacag fara badan ayaa kasoo bixinaysaa, dalaggiina waxaa laga yaabaa inaysan qiimo badan aadan ku helin. Marka sidaas darteed meelahaasoo kale waxaa fiican placementiga inaad isticmaasho, sababtoo ah intii horta aa haysatay faa'iidada aa ka helaysid iyo ujeedada aa ka gaaraysid ayaa aad u badan. Waxaa kaloo placementiga la iskula taliyaa markii root systemka ama xididka geedkiisa waxyaabo ciriiri gelinaya u diidaya inuu siday tahay u koro haddii ay jiraan, sida kaba soo qaad babaan waxa la yiraahdo haddii ciidda hoose ay adag tahay oo aysan suurtagal ahayn inuu meel fog tago ama geedkii uu yahay geed xididkiisa uusan aad u dheerayn. Meelahaasoo kale oo geedka xididkiisa saameynaya iyadana in geedka xididkiisa meeshii uu gaaraya in la dhigo waa la iskula taliyaa. Aad ayay u fiican tahay in saas la sameeyo. Fertilizer placement waxaa kaloo la iskula taliyaa markii ciidda nafaqada ku jirta sidaba oo ahaan ay nafaqa ay leedahay oo ama phosphorus ha ahaato ama potassium ha ahaato. Ileen badanaa nitrogen waa naga nira markasta waa muhiim in lagu shubaa, waa loo baahan yahay. Marka labadaas haddii aad og tahay inay ku liitaan ciiddaada waa muhiim marka inaad placement isticmaashid si dhulkaas badan oo aan nafaqada lahayn ay intii yarta aad ku shubta aysan ugu dhex lumin ee aad dhigto nafaqadii meeshii looga baahan yahay kaliya maadaama ay kugu yartahay. Hadhow ciidda saasaa ugu shubaysa marka dambe nafaqadu marka hor usoo kacdo waa laga yaabaa inaad markaas aad dusha uga firdhiso, laakiin intaad nafaqada kor usoo qaadaysid
oo ay organic matterka ciiddu dhismayso waa muhiim marka inaad ka faa'iidaysato oo aad placementigaas aa isticmaasho marka midda koowaad oo aan video uga hadlayno oo fertilizer placement ka mid ah waa waxa la yiraahdo plow soil placement iyo deep placement mid la yiraahdo labaas ayaan video uga hadlaynaa marka plow soil placement micnaheedu waxa weeye fertilizerkii ayaa waxaa la dhigayaa meeshii plowgu uu maray plowgu markii uu maro meesha oo uu dhaafo god ayaa ka samaysmaya godkaas markuu ka samaysmo godkaas ayaa nafaqadii la dhigayaa hadhow marka dambe oo uu plow ku soo noqdo qaybtii la dhigay fertilizerka ayuu ciid ku soo rogayaa marka sidaas ayaa waxa loo yiraahdaa plow soil placement halkaas ayaa la dhigaa marka dabcan qalab la isticmaalo way jiraan laakiin qalabka haddadan haysan oo kale plowgii waa isticmaali kartaa oo isaga ayaa ciidda hadhow ku soo rogaya qaybta kale marka shaqadii waxaa la qabanayaa intii plowingka la waday ayaa shaqadii nafaqayntana la samaynayaa marka sidaan niri qayb kasta oo aad nafaqadii dhigtay jiirada dambe oo uu soo noqdo gaariga ayuu ciiddii ku rogayaa marka meeshaan ama nidaamkan waxay ku fiican tahay oo loo isticmaalaa ciidaha sida saa'idka u qalala oo kale oo dhowr sentimitir ciid hoosteeda markii aad tagto qalalaya hadhow markii roobku uu ku yaryaho kale camal oo roobku uu yaraado maadaama marka qaybtaas hoose qoyaanka uu ku daahayo waxaa la rabaa xilliyada oo abaarta oo biyuhu yar yihiin oo xididkiina qaybtaas uu gaaray nafaqadii inay hoos taallo oo uu ka faa'iidaysan karo xididkii hoos aaday nafaqadii oo qoyan oo qaybta hoose ah oo aan qaybta kore oolin in maaragta qoyaankaas iyo nafaqadii qaybta hoose uu dalaggu ka faa'iidaysan karo ayaa la rabaa waxaa kaloo loo isticmaalaa ciidaha oo dhoobeyda ah oo aadka u culus oo markii la mariyo plowga markii la mariyo qaybta hoose aad u adag tahay oo hadhow adag tahay in xididku uu dhaafo marka qaybta ka koraysa qaybtaas adag ayaa nafaqadii la dhigay hadhow xididku marka meeshaas ayuu ayadan uga faa'iidaysanaya sidaas oo kale marka faa'iidooyinkaas ayay leedahay marka sida aan sheegnay fertilizerkii oo aad dhigtay ciiddii oo qoyan ilaa markii ciiddii la gediyo waa qoyan tahay markii fertilizerkii aad dhigto marka ciiddaas qoyan oo biyihii waraabkahana ay gaareen hadhow sida aan sheegnay marka wuxuu ka faa'iidaysanaya dalaga xilliga qalaylku uu jiro ayuu nafaqadii iyo qoyaankii hoose labadaasba uu isku helaya insha allah faa'iidada kale oo ku jirta waxa weeye in kole insha allah marka ayaan ka hadli doonaa fixation wax la yiraahdo ayaa jirta oo haddii ciid fara badan aad nafaqa yar dusha uga firdhiso fixation wax la yiraahdo ayaa ku dhacaya phosphorus-kii oo ciiddii kale ayaa fix garaynaysa oo hadhow dalagyadii waxaysan qaadan karin ayay noqonaysaa marka sidaas darteed broadcastingka ayay dhibkaas ka yimaadaan laakiin markii saan oo kale iyadoo koox ah nafaqada saas qaybta hoose oo plow ka baxo kale loo dhigo waxaa dhacaysa inaysan fixationkaas uusan ku dhicin oo hadhow dalagii uu ka faa'iidaysto ayaa dhacaysa insha allah midda labaad oo aan rabno inaan ka hadalno iyadana waxaa la yidhahdaa deep placement oo ah qayb hoose oo fog oo mararka qaar tan xataa kasii fog inaad gaarsiiso aad dhigto nafaqadii tusaale ahaan bariiska oo kale 3 bilyan oo qof ayaa adduunyada cunto u yahay 100 wadan ka badanna waa laga soo saaraa iyo qaaradaha dhan oo adduunyadana waa laga soo saaraa bariiskaas marka wuxuu u baahan yahay nafaqo si uu wax soo saar fiican oo qatara uu yeesho marka nitrogenka muhiimka ah oo aadka loo isticmaalo oo bariiskaas loo isticmaalo si wax soo saar fiican u yeesho waa midka la yiraahdo urea oo waliba gacanta iyadoo lagu firdhinayo broadcastingkii aan soo aragnay iyadoo la isticmaalayo ayaa la sameeyaa laakiin way ka warqabaan dadka beeraleyda ah iyo dadka ka shaqeeya inay tani leedahay khasaaro oo maaragtay waxa la yiraahdo volatilization ayaa dhacaysa marar badan denitrification iyo run off oo ah inay biyihii qaadaan nafaqadii ay ka saaraan beertii marar badan waxyaabaha noocaasa ayaa ka dhaca yuuriyadii dusha looga shubay marka sidaas darteed kaartooyin kaloo la isticmaalo ayaa jira oo ka fiican oo beeraleyda qaar ay isticmaalaan oo ah in ay nafaqadii qaybta hoose intaan biyihii lagu soo dayn oon bariiskii la duugin ayaa qaybta hoose nitrogenkii yuuriyadii lagu duugaya qaybtaas marka ayaa waxaa la yidhahdaa deep placementiga badanaana waxaa loo isticmaalaa marka bariiska dadka bariiska soo saara ayaa aad u isticmaala yuuriyada iyadoo la isticmaalayo ayaa qaybta hoose la geliyaa bariiska inta aan la duugin waxaana la sheegaa marka inay wax soo saarkii ay si saa'id ah ay kor ugu qaado oo qaabka kale ay ka fiican tahay dabcan shaqo badan ay u baahan tahay laakiin wax soo saar ahaan way ka fiican tahay midda kale oo xitaa beeraleyda aan dhaqaalaha weyn aan haysan iyo lacagta farada badan leh xitaa way isticmaali karaan nidaamka noocaasa oo in qayb hoose lagu duugo intii bariiska aan la duugin ka hor yuuriyadii in lagu duugo
marka sida aan sheegnay nidaamkan inta badan waxaa isticmaala beeraleyda bariiska soo saara ayaa aad u isticmaala marka nidaamkan markii la isticmaalo wuxuu keenayaa in maaragtay nafaqadii qaybta hoose xididka markii uu aado inuu si fiican uga helayo ayna yaraanayso markaas nafaqadii khasaarada ahayd oo ka dhex baxaysay beerta oo biyuhu qaadiyeen ayaa yaraanaysa maxaa yeelay nitrogenkii wuxuu kugu jiraa qaybta hoose oo ciidda ayuu kugu jiraa marka qalabkaasoo kale haddaadan haysan beeraleyda hadda ninkan oo kale waa Ethiopia ayuu joogaa balaw caadiya ma haysto laakiin xoolahan ayuu wuxuu adeegsanayaa balaw ahaan isagii markiisaan aad godkii u qodana mirtii ayaa dhigi kartaa iyo nafaqadii labadiba waa isla dhigi kartaa si wixii oo dhan shaqadii oo dhan halkaas saf ugu qabato meelal badanna noocan oo kale ayaa loo isticmaalaa marka qasab maaha qofku inuu haysto machineryal waaweyn oo loogu talagalay nidaamka noocaasa wixii uu haysto ayuu ka faa'iideysanayaa qaabka uu isticmaali kara ayuu isticmaalayaa insha allah faa'iidooyin badan ayay leedahay kulli qaarna waa soo sheegnay laakiin waxaa ka mid ah oo faa'iidooyinka ku jira nidaamkan placementiga ah waxaa ka mid ah sidaan hore u sheegnaba in fixationkii phosphateka ay yaraanayso oo xididkii ayaa ag dhigaysaa meeshii uu kasoo bixi lahaa ayuu nafaqadaadii taallaa marka sidaas darteed dhulkii oo dhan kulama daadsana oo ciiddii particleskeedii siday isugu imaanayaan iyo nafaqadii way kooban tahay xididadii meesha agtooda ayay yaaliin marka sidaas darteed fixationkii ku dhacayay nafaqadu aad ayay u yaraanaysaa sidaas darteed aad ayaa waxaa la iskula taliyaa haddiiba phosphorus oo kale ay isticmaalaysid iyo mararka qaar xataa potassium in aad xididka meesha uu kasoo baxaya agteeda haddii aad dhigto nafaqada faa'iido badan inay ku jirto seedka ama xididka agtiisa haddii aad phosphoruskii aad dhigtid faa'iido badan ayuu ka helayaa waana talada la iskula taliyo in inta badan la isticmaalo sababtoo ah nitrogenka biyaha ayuu sahal kusoo raaci karaa oo uu ku gaari karaa xididkii laakiin phosphoruska iyo potassiumka biyaha si sahal kuma raacaan oo xididka meeshii uu joogo uguma tegayaan waa inuu xididku ugu yimaadaa meesha ay joogaan marka haddii aad ag dhigto faa'iidadaas khatarta ayaa ku jirta faa'iidooyinka kaloo ku jirta marka placementiga waxaa ka mid ah in weedkii ama haramihii ka baxayay beertii oo dhan maadaama aad hal meeloo kooban aad dhigtay nafaqadaadii inaysan ka faa'iideysan karin sida aan sheegnana sida ay geeduhu uga faa'iideysanayaan nafaqadii halka meel aad dhigtay aad ayay u sarreysaa oo waa ka sarreysaa broadcastingka markii aad samaynaysid marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iiday videogan insha allahu tacaala waan sii wadi doonaa ugu yaraan hal video kale ayaa qaybtan qalalan noogu dhiman ayaan rajaynayaa marka intaan video kale kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan